runtii isboortiga hadda Puntland iyo wasaaradda isboortiga aad baa horta madaxweynaha ugu mahadcelinayaa markii hore xoogaan waxaan dhahaynay gabar aan shaqo ku lahayn ayuu u dhiibay laakiin runtii ilaa iyo 89kii 98kii ayaan isboortigan Puntland dadkii ka shaqeynayanahay waxaan leeyahay wasiirad hodan waxaan u bixinay the iron girl waa runtii qof aad iyo aad adag qiimo leh sharaf leh marka waxaan leenahay horta madaxweynaha mahad gaaran siinayna hadda dad su'aashaadi u soo laabtana ciyaarihii hadda waxay marayaan horumar aan inaba la taaban karin xagga ciyaarta xagga dishibliinka xagga isku xirka waxaan u jeednaa ciyaartooydii oo ka baxay heer qabiil heer goboloosi oo noqday international ciyaartooy waxa arkaysaa u kala ciyaaraya goboladii Puntland oo dhan oo ka kala yimid goboladii Soomaaliya international dibadda marka waxaan ku leeyahay wuxuu marayaa si fiican u hafsimo leh ayuu u socdaa ciyaaruhu waayahay waxaan rabaa marka la eego hadda tartankii tobnaad weeye Puntland wax badan baad ku soo dhex jirtay ciyaarahaas tamaadkii waxa ahayd kabtankii waxa xidhneed 85kii sad noo sheegtay gobolka Nugaal adoo Muqdisho kaga qayb galay ciyaar ama koob gobolada Soomaaliya loo qabtay marka dhinaca anshax la eego bal waa sidee hadda Puntland ciyaartooyda marka eegteed macallimiinta iyo guud ahaan sidee u socdaan waa runtii وأد بلغم على قدومياشا عيارتويدوا أنا وحن كنا من كندا وحن منا إن أقونتين والصومالي وحي ترى واري من سيدا ورا كاهرو إن علمي جين أقونتين all the way up كندا كايمت يمان شيء كايمت تيجت كيجا شقادة يديان كسو تيجي هوتيل كان ديجينه عندان عنويه وح أي دولة Puntland أي نجاب بحسه متران لكن wax xaq anagana lagu leeyahay contribution-ka inaan ka qayb qaadano oo inaan waxaan time-keena iyo waqtigeena aan gelino marka waxaan taasna aan ku helnay inay ixtiraam iyo qiimeyn iyo respect aan ka helnay gudoomiyaashii ciyaarihii iyo ciyaartooydiiba anigoo gudoomiyaha anshaxa hadda meeshaan joogo iyo meeshaan soo qabtay isku jaga maahan anuu gudoomiyo ku-xigeenkii xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta FIFA noqday haddana waxaan ahay gudoomiyaha anshax waa garan kartaa jagada inta u dhaxaysa waa meel hoose laakiin aniga waxaan ku faraxsanahay inaan aqoontayda iyo cilmigayga aan ummadayda la qaybsado dhinaca time-ka dhaqaalaha iyo aqoontaydaba waxaan helayna inaan ku helay ixtiraam maalin kasta garoonka waxaan imaadaa 2 iyo barka dadka ila midana waxay fariistaan VIP-da booska VIP-da ana iska lahaa laakiin waxaan u bareeray inaan fariisto qoraxda ana control ciyaaraha marka ciyaaruhu si fiican u socda anshaxiina meel iyo qurux leh oo karaamo leh oo ayuu hadda ku socdaa wadamada aad ka timi maxaan ka baran karnaa dhinaca isboortiga iyo anshax marka la eego waxaan ka baran karnaa waxaan hadda u nimid inaan wixii anaga dibadda joogto as diaspora waxyaalaha u nimid waxa way aqoontayna hore aan hore u lahayn lowlaan ahaan jirnay ciyaartooy hore u soo ciyaaray naadiyadii Soomaaliya sida aan u soo ciyaaray Munishibi iyo kooxdii dekadaha aan ahaana kabtankii Nugaal 84 85 anoo aqoontayna Soomaaliya wadan haddana adduunkii markaan tagnay aqoomo kale ayaan ka soo faa'iideysanay aqoontiina waxa hadda ugu soo laabanay maanta caasimadda Puntland ee Garowe aan u joognana inaan u gudbino waan u gudbinaa anagoona ku xirin darajo dhaqaale iyo lacag midna doona waayahay markaad isu eegtid xilligii hore iyo hadda ciyaaraha Puntland ka socda ma sidee isku barbardhigi lahayd dhinaca aqoonta iyo anshaxa iyo marka aad baan u faraxsanahay especially aniga waxaan ugu faraxsanahay dadkii ugu horeeyay aniga الله ونحرسته لاعب كي قرن كصوماليات أملاكين كصوماليات محمد حاج أوري أو الأورنجر ديشي صوماليا معلن توكي أو ها معلمينتي هو وين صوماليا يو معلن جيلة ناني 8 كي برنامج كأم بلوني ما أنت صوماليا دتك بيرليدا وحالة دها بيرها عنبها موسكا كده وين أو مرها دلا وحال السوق 8 سنة كبعدها مرهود رجورتا وحنا نقدان إلا future كيسعودان مركب ما أنت وحنا كفر حسنا هاي 2024 إن أنا أرجعني
مريه أنا أورني صاحبك يا الله ونحرس جنة الله كي محمد حاج أوري معلن توكي يا نكل يرادو معلن جيلة يا نو بكنا قرشكي يا تايمكي يا توبردي فريدي وحنا برني ما أنت بلان سبورت جيدو وحو جوجا هير international ciyaartooyda say u ciyaarayaan skillskooda awoodooda energygooda iyo timeka macnaha quwadooda iyo maskaxiyanba waa ka dhismeen waxaana runtii aad iyo aad madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo naga ballan qaaday in from now on sidoo anagu aan ahaan jirno ku soo kornay kooxaha naadiyada in lagu kala dari doono 10 seeraha wasaaradaha iyo hay'adaha oo waaweyn si ay u helaan mushaar iyo dhaqaalo isboortiga Puntland u gaaro professional waayahay waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo dhinaca ciyaartooyga ama macalinka ha ahaatee anshaxu heer intee la eg inuu yahay mid anshax wanaagsan leh heer intee la eg buu qayb ka qaadanaya horumarka isboortigiisa banoonigu waa isdhexgal waa walaaleen Puntland caasimada Garowe waxay noqotay caasimadii Soomaaliya aan ku soo korno Muqdisho oo Soomaaliya isugu imaan jiray haddana Garowe caasimada Garowe bilan waxay noqotay meel ay isugu yimaadaan ciyaartooyda hadda la ii sheegayo ilaa Gaariso oo Kenya Jigjigo ilaa Hargeysa ilaa Burco ilaa Xamar ilaa Kismaayo ciyaartooy kasta waxay noqotay in loo soo shaqo tago oo ciyaartooyga la soo gato waxaasna waxaa keenay waa caasimada Puntland iyo si gaarana waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka degan caasimada Puntland Garowe oo ah dad ilaahay u abuuray soo dhaweynta martigelinta oo dadka ixtiraam iyo qiimo ay ku helaan aan dadka Soomaaliyeedna aan qof kale oo jirin caasimada Puntland Garowe marka taasna waxa iska leh shacabka degan iyo dadka degan oo dhan oo dhinac kasta Garowe taasna waxay keentay anshaxii annaguna ciyaartooyga ku xadgudba anshax awood ay authority ay siisay wasiirad hodan waa wasiirada u bixiyay Iron Lady aan u bixinay oo hadda magacaas ma rabnaa inuu noqdo magac hergala is Iron Lady ayadoo dumar ah ayay waxay u handle garaysay shaqadan iyo khilaafaadka si aan caadi ahayn marka waxaan runtii ka codsanaynaa ciyaartooy badan hadda khalad bay galeen khaladaadkaasna waa ka ganaaxnay waxaan u sheegayaa ciyaartooyda ciyaarahan waxay soconayaan maximum waa 15 bari ciyaartooy walbo seeraada iyo ciyaaraha soo socda saada uga baaqan qofkaan ganaaxno Soomaaliyana kama ciyaari doono because xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo xiriirka maamulka Puntland waa isku xiran yihiin xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagtana waa xiriirkii Soomaaliyeed oo Soomaaliya dhan leh marka qof kasta ogaado qofkii halkaan ka ganaaxno meel kasta oo Soomaaliya kamid ah inuu ciyaar ka ciyaareen ciyaartooygu suu u noqdo mid anshax wanaagsan leh maxaa laga rabaa inuu sameeyo ciyaartooyga anshaxa wanaagsan waa sida ciidanka oo kale ciidanku discipline bay leeyihiin isboortiguna waxyaalaha aan ugu horeeya oo aan ku soo barbaarnay waa discipline ciyaartada waxaa jira anaga guddigan anshax go'aano aan gaarnay example ciyaartooy baa wuxuu qaadanayaa the match of the day balasi oo wuxuu noqday maanta ninka banoonigaas ugu khatarsan oo sanka ka wada laag Ronaldo kale Messi oo kale ciyaartooyda la yaqaan laakiin haddii uu ciyaarta isagoo ku jira oo dhamaan oo qaatay yellow macnaha hadduu yellow qaato wuxuu waxay wax anshaxi ka baxsan marka waxaan go'aan ku gaarnay guddigan anshaxo 5 qof ah ciyaartooygaas inaan ka leexino match of the day oo aan siino ciyaartooyga kale oo ku xigay marka ha ogaado wax walba oo ciyaar kasta taqaanid waxa ka qiimo badan anshaxa iyo ixtiraamka waxaan kaloo u sheegaynaa kabtanka kooxdaada kabtan u tahay refereega kabtan uma tihid waxa kabtan u tahay kooxdaada ina anshaxa celisid laakiin adiga hadaa qaylo bilowdid ama buuq bilowdid ogow kooxda kabtan u tahay refereega kabtan uma tihid ilaa hadda talaabooyinka dhinaca anshaxa aad qaateen maxaa kamid ah waxaa kamid ah ciyaartooy badan ayaan ganaaxnay annagoo wali ciyaartooyga aan jecelnahay timekooda iyo waqtigooda inaan ka ganaaxin
way jiraan ciyaartooyo badan hadda aan ka ganaaxnay 2 sano kale kuwaan ganaaxin 10 bari kuwaan ganaaxnay maalmo wax walba waxay ku xiran tahay sharciga iyo ruulka u yaala xiriirka Soomaaliya xiriirka kubadda cagta ee Puntland ay qorteen ayaa markasta ixtiraameena oo aan follow gareynayna waxa qoran ilaa sharciga qoran hadii laga leexdo hadee wadadii oo ka dhacday gaarigaas waa godoomaya markasta waxaan ku istaagayna kuna shaqeynayna xiriirka sharciyada u qoran ayaa ku ganaaxina dad baa 2 sano ganaaxnay dad baan ganaaxina sanado dad baan 10 bari ganaaxnay dad baa ciyaaro ganaaxnay waxaas oo dhan waxaan ku qiimeynaynaa action ku wixii report kuna si referee yaano gudiga anshaxa oo dawladda hore fadhina wixii aan ku aragna ku ganaaxina ganaaxyada ciyaartooyga ku dhaca saameyn inta la ku yeelanaysa mustaqbalkiisa ciyaareed aad baan kaaga mahadcelinayaa su'aashaasina waxay mustaqbalkiisa ku yeelanaysaa because ciyaaraha gobolada hadda socda waa 15 bari waxa bilaabanaya ciyaaraha seeraada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu naga ballan qaaday inay seeraadu ay lagu kala daro doono wasaaradaha waxay ku yeelanaysaa mushaarkii noloshiisa oo qaadanaha ama haduu familkiisa ku masruufinaha ama haduu asoo iskool dhiganayo ama jaamacad dhiganayo ku noolaanaha oo dhan ayaa waxay ka baxaysaa daaqada marka saamaantaasna waa tan future-kiisa daba taagnaanaysa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada maalintii ciyaaraha dhamaadaan ma yaqaano ma garanayo magaciisa wajigiisa iloobi doona marka qof kasto ciyaartooy kasto dantaada iyo future-kaaga wax walba kaaga qiimo badan ilaali anshaxa iyo sharciga u yaala dadka ku hadlayana luqadaha ka baxsan ciyaaraha oo ama isticmaalaya siyaasad ama language oo qabiil isticmaalayana ha ogaadaan waa ciyaartooyda aan ganaaxa uga adag aan saari doono hadii uu ku hadlo siyaasad sportigu siyaasad maahan sportiguna qabiil ma laha caasimada Puntland qof ka xiga ma leh waa caasimad Soomaaliyeed waa caasimad ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku farxeen isugu yimaadaan qof ilaa raas Kaambooni ilaa raas Casayr ilaa Jigjigo ilaa NFD ilaa Jabuuti qof ka xiga ma leh qofkii isku day inuu ka xigsadana asagoon baa future-kiisa iyo aytiinkiisa saga ciyaaraya wuxuu isku ilaalin karaa waa inuu markuu garoonka soo galiyo oo ku soo diyaar garoobaa gool iyo gool dar iyo bareej wax walba oo dhacayana anaga muslim baan nahay diin la nahay ilaahay diin baan ku dhalan diin baan ugu soo waabiyay wax walba oo dhacayana qof kasta uu ogyahay qadar Allah inay ku dhacayso marka ciyaartooy walba dantaada iyo future-kaaga ka hadal ka dhaca oo media galana noloshaadana meediyahaas uu ku daba oolaya barka maalin waxa noqon doontaa madax barka maalin waxa noqon doontaa leader barka maalin waxa noqon doontaa culimo luqadaas YouTube-ka ka gashay adoo ama qabiil aflagaadeynaya ama shakhsi aflagaadeynaya record-kaas noloshaada adiga iyo caruurtaada iyo waxa dhashidba way oolayaan maanta waxa la gaaray technology-gan wax walba record bileeyin hadal xun iyo ka dhicin hadal xun iyo ka fakan ciyaartooy noqo shaqadaada gudo 90 kaaga daqiiqo dhamaysto 4 daqiiqo ugu dambaysa ama 3 daqiiqo ugu dambaysa 2 gool baad dhalin kartaa ganaaxyada aad sameyseen waxa kamid ah maanta inuu jiray ciyaartooy aad sheegteen in 2 sano oo ganaaxa aad ku dhufateen xukuumadaysta waxa weeyaa ciyaartooyga xaqiiqa xadiid baldaha waa ciyaartooy aniga laftigay hada personal ana dadka waxa Soomaalida waxa rabeen hadalka clear uga dhigo Soomaalidu qofka marka laga raayo ama dad baa waxay ku hadlayaan luqado oo qabiila wiilkaas hadda aan ganaaxay anu adeer baan wadankii Canada anu aan ka imid ciyaartooy wuxuu kamid ahaa koox anu aan president ka ahay ayuu wuxuu ka ahay ciyaartooy fiican oo wadanka Canada ayuu ila joogay koox anigu la yiraahdo Samkey Academy oo kooxda ugu waaweyn oo Canada ka jira ayuu ciyaartooy kamid booha anigana kooxdaas waxaan ka ahay presidentaha ee kooxdaas waa ciyaartooy saas oo aqaano laakiin sharcigu ma yaqaano adeer president iyo dis iyo dad wuxuu waxeeyay xadgudub oo laba isku xiga ciyaartooy meel taagan
inuu fair unproper ku dhuftay markuu ciyaarta ka soo baxayna coachkii kooxda gobolka Mudug oo banaanka taagan inuu haraati oo proper ah oo ku dhuftay marka waa wax fiidiyoyaashii iyo kaamirooyinkii hayaan anoo adeer u ah kooxdeedii Canada anuu aan presidenta ka ahaa ku ahaa laakiin sharcigu ha ogaado qof kasto Soomaalida waxay ku amadaasha gowrac weesha ku quuso shanteena waxaan go'aan gaarnay inaan ganaaxaas cod aqlabiyada anuguna shantaasan ka mid ahaa ma oran wiilkan ama adeer baan u ahay ama kooxdeedii baan Canada presidenta ka ahaa ayuu u ciyaaray marka sharcigu ma yaqaan adeer heelana ma laha qof kastoona ogow qofkii dambiga leh halkaas uu maraya kuwa anshaxooda wanaagsan yahay iyagu maxay abaalmarin helayaan koobka very good that's a good question adban kaaga mahad kuwaasna waa kuwan siin doono go'aankaas guddigan anshaxa oo shanta aan gudoomiye u yahay xoogayna yahay odaga weyn Cabdi Sabaay oo kamid yahay oo ka yahay ayaan waxaan u fariisanaynaa ciyaartooyga u qalma iyo coachka u qalma iyo waxa anshaxana wuxuu ku heli doonaa abaalmarin buu leeyahay ganaaxana waa jira abaalmarinna waa jira